السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada mowduuc muhiim oo ku saabsan xogta xaqiiqi ah ee waxbarashada dalka Turkiga iyo nolosha ardayga Soomaaliyeed oo waajaho. Podcast-ka maantayna waxa uu si qoto dheer uga hadli doonaa macluumaad ku saabsan waxbarashada dalka Turkiga iyo fursadaha, caqabadaha soo waajaha ardayga Soomaaliyeed. Maanta waxaa noo martiya Maxamed Aadan Cali oo ku magac dheer Muusayid. kusoo dhawow Go Fagaaro. aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay. aad iyo aad ayaan ugu dhowahay Go Fagaaro. waxaan kaaga mahadcelinayaa sida quruxda badan ee aad halkaa ugu casuumtay. maantana waxaan rajaynayaa inaan si qoto dheer uga hadalno mowduuca aan soo qaadanay oo ah dalka Turkiga iyo ardada iyo waxyaabaha ay la kulmayaan. oo mahadsan tahay. haddaba maadaama aan joogno waddan qurba aan joogno oo waxbarasho ku imanay, Muusayidow safarkaaga waxbarasho halku ka soo bilaabmay xaqiiqdii? safarkayga waxbarashada run ahaantii aad u dheer yahay. waxaa waaye markii laga soo bilaabo safarkayga waxbarashada yaraantii dugsi qur'aanaa la tegayaa sida qof walba Soomaaliya uu soo maro. marka koowaad dugsi qur'aana lagaaga soo bilaabayaa, kadib iskuulkii, jaamacad ilaa heerka rabtida ka gaaraysid. marka dugsi qur'aan waagii la geeyay ani xitaa ma xasuusto, anigoo dugsiga dhiganaa iska arkay sida Soomaalida badankooda walaalahayga iska raaci jiray sidii aan dugsiga ku bilaabay. kadib waxaa waaye dugsiga markii aan meel fiican ka gaaray waxaa galay oo la geeyey kuleejkii haddana dugsigii qur'aanka iyo waxbarashadii kale ku bilaabay. intaa saa u socotay waxaa waaye kuleejkii haddana ka soo baxay iskuul caadi ah sida halkaas qur'aanka aan kusoo bartay koowaadkii ilaa afaraadkii halkaas aan kusoo qaatay. kadib waxaa waaye iskuul sare dugsi dhexe caadi u bilaabay ilaa heerkayga dugsiga sare aan soo dhammaysto. kadib heerkayga jaamacadda dalkan Turkiga ayaan soo aaday oo hadda aan ka wado heerkayga koowaad ee jaamacadda. ahaantii arday walba Soomaaliya markuu dhammeeyo labtibnaad wuxuu ku hanwen yahay inuu dibadda wax ku soo barto soo dee wax badan kala jar badan la soo kulmo. ani ahaanba dhacan waxa uu midwaa sidaa weeyi oo sidaaba ay ahayd markaan yaraa ama markaan dhameeyey labtibnaad saabaan dooni jiray. haddaba Muusayidow adi ahaan dalka Turkiga intaanan iman maxaad ka aaminsanayd oo sawir nooceeya ayaad ka qabtay intaanan iman oo bal ka waran balsay ahayd? run ahaantii saa sheegtay ayaa run ah oo qof kastoo dugsiga sare ama fasalka 12aad soo dhammeeyo wuxuu ku hanwen yahay inuu dalka ka baxo oo dee dalalkan ajaanibta ah Yurub ama Asia ay nooc meeshay noqoto qofba meel ayuu ku hanwen yahay inuu maalin uu tago wax uu ku barto. qofka Soomaaligaana markii uu dalkii joogo waxbaa u sawiran, qof kasta wax buu sawiranayaa markii dee ajaanibtaani meelahaas kale aad tagtid in waxbarashatan ka fiican jawi kan ka duwan waxyaabahaasi oo qofka ku hayo welwel darteeda ayaa qof walba ku kalifaysa. anigana waxaa waaye fikirkayga horta inaad dibad aado waagaa dugsiga sare bilaabayay oo fasalkayga 9aadka ilaa aan ka soo dhammeeyo ayuu ugu jiray inaad jaamacaddayda dalka dibaddiisa aan ku soo barto. marka qaabkaasi ayaa waxaa waaye horta niyaddayda ahayd. kadib dalka Turkiga markay noqotay dee inaan dalka Turkiga aado oo waddanka aadayo ee Turki noqotay waxaa waaye habeen kasta horta Istanbul iyo Ankara wareegi jiray anigoo Soomaali jooga laakiin maskaxdayda waxay joogtay dalka Turkiga oo maalin kasta iyo habeen kastaba waxaan ku fikiri jiray meeshaasi siday tahay iyo qaabka dadka u dhaqmayaan. adiga nolol waxaa ii sawirneed oo aad iyo aad u qurux badan, laakiin noloshaasi anigii unba ii sawirneed waa qofku markii uu dalka ka maqan yahay mise meel uusan weligiisa tagin looga sheekeeyo waxyaabaha uu tviyada iyo meelahaasi ka arko iyo sida maskaxdiisa markaas ay u sawirayso ayuu isku darsanayaa. kadib meeshaasi wuxuu ka soo saaranayaa waxyaabo uu arkaayo oo markaasi uu isleeyahay sidaas ayaad ka filanaysaa. markii aan Soomaali joogay dalka Turkiga waxyaabaha ka filanaya 100% sidaan u filayay maysan noqonin. haddaba haddaan intaa fahanay Muusayidow maxay yihiin waxyaabihii aad ka filanaysa dalka Turkiga aad la kulantay aad aragtay? run ahaantii waxaa waaye waxyaabaha aan ka filanayay dalka Turkiga
oo markii fiiseega xitaa inta borosiiskiisu uu ku jiray maabeen kasta aan ku riyoon jiray waxay ahayd in fakaltigii aan jeclahay iyo waxyaabaha aan rabo inaan barto oo weliba jaamacadaha ugu qaalisan aan ka baran doono noloshaydana de nolol iska qurux badan ay ahaanayso oo waxa waaye waxyaabaha de tv iyo meelahaas aan ka arkayo ardayda oo jaamacadaha iyo qaaliga aan dhiganayo in dadkaasi aan ku biirayo fakaltiga aan rabo aan helayo asigoo practical ah macallimiinta heerkoodu sareyso ee ay dhigayaan yacni intaas iyo in ka badan ayaan ku riyoon jiray xitaa waxa waaye magaalooyinka quruxda badan Istanbul iyo Ankara iyo adiga marna nolol qurux badan ku jirtid marna waxbarasho qurux badan aa helaysid ayaa ii sawirneed laakiin waxaasi oo dhan waxay noqdeen wax dhalanteeda oo de anigu ii sawirnaayeen xitaa iska daaya in jaamacadahaasi waxaasi heleen waxa waaye fakaltigii aniga aan ku haminahay oo xitaa asiga dartiisa inaad dibad wax ugu soo barto ay ahayd oo de igu dhaliyay inaad dibad wax ku soo barto waan waaye marka caqabadaha ugu weyn oo qofka la kulmana naas ayaa ku ka ah oo ardayga markii uu dalka ka soo tagayo waxyaabaha uu jecel yahay halkan kama helo jaamacaddu rabo fakaltigu rabo waxaas oo dhan ma helo way jiraan dad oo de markii dalka ka soo tagayaan bay helayaan fakaltiga iyo jaamacadda ay rabaan laakiin mostly ardada markay halkan imaadaan jahwareera ku dhaco qofka jaamacad uusan rabin inuu tagayaa wax uusan rabin inuu baranayaa marka waxa ugu weyn intaas waay laakiin nolosha hadba adiga saa u noolaatid ay ku xiran tahay laakiin jabka ugu weyn oo qofka ardayga soo gaari karo waa wuxuusan rabin inuu barto iyo jaamacad uusan rabin inuu ka barto marka waxaan ka filanayay waxaasay ahaayeen run ahaantiina kama helin waa mahadsan tahay muusiid haddaba maxay ahayd fakaltigii kugu weynaa ee ku riyoon jirtay inaad ka baratid dalka turkiga maxaa ku dhaliyey inaad ku doontid fakaltiga ama fokuska saartid maxay ahaayeen bal ma noo sharaxi kartaa bal fakaltiga aan ku riyoon jiray oo xitaa asiga dartiisa inaad dibadda aado dibadda wax ugu soo barto igu dhaliyey wuxuu ahaa computer science aad iyo aad ayaan dee waxyaabaha tiknolojiyadii computerka quseeyo u xiisayn jiray marka fakaltigaasi inaan wax ka keeno oo dibadda aan aado waxbarasho tayo leh aan helo ayaan ku hami weynaa fakaltigaasi markii aad dalka turkiga markii koowaadna dee dalka turkiga hamigeyga koowaad ma baahayn laakiin caqabadihii iyo coronavirus iyo waxyaabihii jiray dartooda waxaa waaye turkiga inaan aado ayay nasiibkayga noqotay sidii aan kusoo aaday dalka turkiga markii aan soo baxayna waxaa waaye dee fakaltigaas inaan helay ahaana ku soo baxay laakiin halkaan markaa imaaday waxaa waaye dee jaamacad xitaa fakalti engineering aysan bixinaynin waxaa waaye dee liigeeyo markaa dee dalka ku cusub tahayna jaamacad kastaba waxay kuu tahay adiga jaamacadda ugu sareyso waayo ma kala taqaanid wax markaasi meelay u socdaan iyo meelay ka yihiin iyo qof kasta rankiga jaamacadda ay ku jirto ma garan kartid waayo waa cusub tahay laakiin markay indhaha kuu furmaan dalka iyo siduu u shaqaynayo iyo luqadii wax walba aad baratid markaasi waad kala fahmaysaa laakiin markaa cusub tahay qofkii meeshii markaas yaqaano unbaa ku hagayo asiga meeshuu ku geeyo ayaad tagaysaa waayo markaasi adiga go'aan ma lihid adiga isma wadi kartid waxaad taqaanid ma lahan meel aad ku cusub tahay dalaad ku cusub tahay luqadiisa dhaqankiisa wax walbaba ayaad imaatay marka fakaltiga u baahnaa kaas ayuu ahaa run ahaantii waxaa waaye nasiibkayga ma noqon hadda fakalti kale ayaan baranaya marka noloshana dee saa rabtid mar walbaba kuuma noqoto marka caqabadii ugu weynaad turkiga kala kulma taasaan dhihi karaa waa mahadsan tahay muusiid halkan waxaan ka fahanay inaad imato 2021 wakhtigaa oo ahayd wakhtigii xanuunka weynaa ee la oran jiray covidku oo adduunka saameeyey oo adduunka kala xirxiray haddaba soo joogu ahaa adoo waxbarasho u imiday iyo covidkii oo dhaqanka waddanka turkiga la kadooyay oo zaa'id iyo saaga jiro oo maas la xirnayo laba maas la xirnayo iyo waddankii oo dhaqanku ahaa covidka qofka iska loo arkayay bal ka waran markaad imatay ay sameeyay soo degtay jigu soo haana adigu maas xiran dadku say ahaayeen bal iyo noo sharax wallaahi horta waa runta waxaa waaye xilligaas imaanaya dalkan turkiga xilli adag ahayd oo dalal caalamka oo dhan kala xirxiran yahay qof kasta qofka kale uu ka cararayo markii lagula hadlayo xaggaas laga istaagayo covid inuu jiro horta waxaa ogaaday maalinka dalka turkiga imaaday soomaali markaa joogay qof kale ka fogaanaya ma arkaysid qof face mask xiranaya ma arkaysid xitaa iska dhaafa qofka faceka mask xirto asiga ayaa loo malayn jiray inuu covid ka wado asigaa laga carari jiray dadka bulshadu isku dhex jirtay qofba qof kale agtiisu fariisanayay qofka haddii uu xanuunsado argabaa ku haaye
waa caafimaadaysaa shaax iyo wax ku lacab uu ku leeyahay qofka. Marka xilligaasi adag ayaa imaaday, waxaana dee caqabada koowaad aan la kulmo waxay ahayd horta face mask inaan la qabsado. Face mask ma xiran karin, markaas u xirtaba waxaa waaye neefteeda kuleel igu qabanaysa, waa siibaya. Diyaaradda markaa ku jiray waxaa waaye naagta meesha ka shaqaynayso markasta saas iskaga furo waxay leedahay face mask xiro. Anigoo taas ku dhib qabo haddana waxaa waaye soo degay. Markaa soo degay qof kasta waxaa waaye afku xiran yahay, marka arkay qofka la hadashidba xaggaas kaa istaagaya, xagga ka hadal oo ku leeyahay. Runtii waqti adag ay ahayd, waxaa waaye meel walban way xirneed, waxaa waaye qofka 1 mitir ka fogaanaysa, kadib waa la hadlaysa. Haddii bas la raacayo taagtaagaa loo raacaya, dad badan ma socdaanba baska 10 qof camal lagu raacaya, mid xaggu istaagaya mid xaggaanu istaagaya. yacni qaabkaas ay ahayd waxbarashadeydii. Marka isla markii ma gudagelin, saa wada ogtihiin dalka Turkiga markaa imaatid waxaa waaye sanadkaaga koowaad ama 6daada bilood ugu horeeyo waxaad diyaarinaysaa luqadda Turkiga. adiga jaamacadda English ku dhiga ama ha ku dhiganin 6daas bilood inaad diyaarisid qasab ay kugu tahay, sababtoo ah haddii beri ka maalin aad magaalada gashid qofka wax uu ku adeegan kala rabaa, dadku uu ku fahmi karo. marka 6daas bilood luqadda Turkiga ayaad diyaarinaysaa, kadib jaamacaddaada English ha ahaato ama Turki ha ahaato meeshaad doontid ayaad aadaysaa. marka aniga waxaan ku soo aaday meel walba oo xiran tahay luqadeyda Turkiga. waxaan ku qaatay yurta aan deganayn ayaa meeshaas macallin loogu keeni jiray, halkaas ayaan ku qaadan jirnay anagoo yurteen iskaga jirno meelna la aadaynin, ayaa halkaas ku dhamaysanay luqadii. kadib waxaa waaye covidka markuu dhammaaday ay noqotay in jaamacaddii aan bilaabo. hadda haddaan isla fahanay waqtigaad imatay aad ku soo beegay waddanka Turkiga ahay waqti adduunka oo kala xiran yahay oo covidku jiray oo waxbarashadu online lagu dhiganayay, haddaan intaa isla fahanay. haddaba jaamacadaha Turkiga ee kuwa Soomaaliya systemka loo dhigto, qaabka wax loo dhigto iyo waxbarashada dalka Turkiga siduu ku duwan yahay Soomaaliya mise waa la mid. markaad tagtay jaamacadda maxaa la kulantay, qaab sidee ayaad u fahantay systemkooga, si u fahantay bal noo waramo. waa mahadsan tahay. horta waxaa waaye haddaan ka hadalno jaamacadaha, marka koowaad aad tegaysid aa ka bilaabayaa qofka markii ugu horeedo 6 bilood ama 1 sano luqad Turki uu soo dhigto, haddana af Turki jaamacad uu ku baranayo. waxaa waaye caqabada ugu horeyso la kulmaayo waxaa waaye inuusan fahminba macallinka wuxuu ka sheekeynayo, sababtoo ah luqadan aad soo baratay waa luqadii suuqa, luqad suuqeed aad soo baratay. halka jaamacaddana waxaa yaalo luqadii cilmiga iyo luqadda suuqana markasta way kala duwan tahay, saa wada ognahay. marka sanadkaaga koowaad oo dhan waxaad ku bixinaysaa translator ina macallinka ereyga inaad fahantid, ereyga macallinkuu sheegayo aad raadisid, markaas unbaa la qabsanaysaa. laakiin haddii translate waxaadan isticmaalin lama qabsanaysid. sanadkaaga koowaad horta caqabad noocaas ayaad la kulmaysaa, kadib sanadadaada kale waa la qabsanaysaa. haddii aan usoo laabto systemka Turkiga iyo systemka Soomaaliya markay noqoto dhanka imtixaanaadka iyo qaabka waxaa waaye wax u dejinayaan, systemka Turkiga 100% sahlan kan Soomaaliya markii loo fiiriyo. waayo Soomaaliya markaa joognay imtixaanaadkana laga qaadi jiray wax ka adkaa ma laha. warqad dhana lagu keenayaa 10 su'aal ku qoran, 10kaas 5 ka mid ah mise 8 ka mid ah direct question way toos lagu weydiinaa, Englishna way yihiin. marka waxaa laga rabaa inaad waxaan qeexid ilaa 3 sadar 4 sadar, adiga paragraph dheer laga rabaa English ah inaad qortid. marar qaar gabay carabi aan noo qorin jiray, gabay carabi dhana kor ka xifdinaynay, gabayga carabiga qoraysaa. laakiin halkan Turkiga markaa imaanay waxaa waaye imtixaankooda test wax la dhahayo aa jiro oo doorasho ah, warqada lagu keenaa oo kood gareysan. warqada su'aalahan waa lagu keenaa bas. su'aashan hadday A tahay A meeshaan ku qoraysaa, B hadday tahay B ku qoraysaa. systemka marka haddii adiga aad luqadda si fiican u fahantid oo maadadaasna aad iska akhrisid, systemkan adigoo indhahaas ku hayo aad waxa waade ka gudbi kartaa. laakiin halka Soomaaliya English ayadoo ku qoran ama Carabi ku qoran tahay, haddana 2 page 3 page 4 page imtixaan lagu keenaya, oo haddana ay tahay si toos ah inaad uga jawaabtid direct question. waxaan doorashada way ku yareed ama meelaha banaan buuxi. imtixaanna waxaa ugu adag meelaha banaan buuxi, waayo jumladda markaa soo akhridid kadib unbaa meeshaas buuxin kartaa. laakiin haddii aad soo dulmartid ama aadanba akhrin waxaa waaye imtixaankaas uu kugu adkaanaya. systemka marka kan Turkiga ayaad aad iyo aad ila fudud ani ahaan, laakiin ardada ajaanibta ah siiba Soomaalideena
mostly waxay ka caawdaan dhanka luqadana haddii aad xoog iska saartid oo fahamtid casharadana aad iska akhridid waxa waaye ardada turkida ayaad ka horeynaysaa. inka systemkan aad iyo aad u fudud yahay. waa mahadsan tahay. haddaan isla fahanay sisteemka waxbarashada turkiga iyo soomaaliya inay kala duwan yihiin, qaabka wax imtixaan loo maro iyo sida loo diyaariyo iyo noodka ay kala duwan yihiin, haddaba nolosha ardayga soomaaliyeed ee ku nool dalka turkiga waa sidee? qaabka aqalba kale galaan ma yuurtay galaan, bal intaba laga waran. nolosha turkiga markii aan usoo laabano waxaa waaye way iska sahlan tahay, laakiin qofka ardayga ah markasta waxaa waaye meel walba uu ku nool yahay caqabada ayaa soo wajahda. qofka ardayga ah degaan hadday noqoto 2 option u bannaan, inuu guri kira ah dego iyo inuu yuurto u dego. marka yuurtooyinka aan ku horeeyo, yuurtooyinka 2 ay u kala baxaan, yuurto dowladeed iyo yuurtada kale oo Suleymaaniyiinta la dhaho. kuwaasi waxaa waaye dad culimo iska leh, inta ugu badan waxaa waaye sadaqa waaye, lacag yar iska bixinaysaa, nidaamkeedu iska fiican yahay. dhanka yuurtada dowladda markaa u imaado, dhanka yuurtada dowladda waxaa waaye bishii adiga $100 ilaa $200 camal bixinaysaa, ayadana sidaas ayaad ugu noolaanaysaa. qolalkana waxaa waaye si babliga loo degayaa, 4 loo degayaa. marka yuurtada systemkeeda qaabkaas waaye. qofka marka haddii uu rabo yuurto inuu dego, qaabkaas ayuu degayaa. qofka kale aa usoo laabto oo guri rabo inuu dego, guryaha turkiga waxaa waaye systemkooda ayagana apartment iyo waxaa waaye qayb uu ka kooban yahay. qayb kastana 2 qol iyo fadhi iyo musqushiisa iyo jikadiisa, ama 3 qol iyo fadhi iyo wixii u dhammaystiran yihiin. marka ardada mostly waxay u degaan 3 qof ilaa 4 qof, 3 qol iyo fadhigoodii waxaas ay u degaan. marka lacagtana sidaas ay ku qaybsadaan, oo korontada iyo gaaska iyo biyaha, internetka, kirada, waxyaabahaas dhan way wada qaybsadaan. marka xilliyadii hore markii kow ay imaanayay dalka turkiga, guryaha kiradooda iyo dhaqaalaha turkiga oo dhan wuu iska fiicnaa, oo waxaa waaye xaaladiisa way degneed. laakiin sidii koronaha looga soo laabtay, waxaa waaye nolosha turkiga aad iyo aad isku beddeshay, 100% ayay wareegatay. waxaa waaye wax walba cirkaas ayay galeen, guryihii ayaa qaali noqday, jaamacadaha xitaa aan dhigano dadka ajaanibta lacagaa laga qaada, lacagihii aa zaayiday, wax kastaba adiga dee kore u socdaan. waagi hore waxaa xasuustaa in 100 liir aa qaadan jiray, bas 100 liir aa qaadanaysaa, supermarketka tagaysaa, wax walbaa soo qaadanaysaa, 2 bac 3 bac soo buuxsanaysaa, lacagtii inay 10-20 liir kaaga soo hartaa laga yaabaa. laakiin haddaa supermarketka aa gashid 2 shay aa soo qaadatid 200-300 aa galaysaa. marka qiimihii aa isbedelay, oo dee nolosha turkiga kor ay u kacday, guryahana way kasii dareenba, guryaha qaali ayay noqdeen. haddana gobollada qaar markaa tagtid waxaa waaye ardada waaba loo diidaaba, sababtoo ah waxaa waaye ardada isku mid maahan, qofba waxaa waaye si uu dhaqmaa. dadaa marka kaa horeeyey oo dee qofkii guriga lahaa iyo qofkii kireynayaba si fiican ula dhaqmin. marka beri ka maalin haddaa u tagtid oo arday ahay guri u baahan, haddaa dhahdeed ardayda yabaanjida guri ma siino aa lagu leeyahay, ardada oo ajaanibta ah guri ma siino. marka taasna caqabado waaweyn waaye oo dee dhanka guryaha ardada ay kala kulmaan. laakiin haddii guri aa heshid, gurigaasi qaali baa iska ahaado, si qurux badan aad ugu noolaanaysaa. wuxuu ka fiican yahay yuurtada, waayo yuurtada dad Soomaali ah iyo dad ajnabi kaleba waa isla degaysiin, dad aan isfahmi karin. laakiin guriga markaad degan tahay 2 qof iyo 3 qof oo Soomaali kula aad isfahmaysaan, isku dhaqanaatiin, aad isla joogtiin, isfahankiina aad iyo aad ayuu muhiim u yahay. marka noloshana mar walbaba kor ay u socotaa, sicir bararka iyo waxyaabahaasi soo kordhay darteeda ay u adkaatay, laakiin xilliyadii hore way fiicneed. waa mahadsan tahay. haddaan isla fahanay nolosha ardayga Soomaaliya ee ku nool dalka turkiga, waxaan isweydiinaynaa su-aal oo ah, ardayga dalka turkiga wax ka bartay iyo ardayga dalkii hooyo wax ka bartay maxay ku kala duwan yihiin? faa'iido iyo caqabado maxay kula duwan yihiin? run ahaantii su-aal aad iyo aad muhiim ayaad weydiisay. haddii aan ku hormaro dhanka caqabadaha, qofka dalkiisa wax ku baranayo oo guriga hooyadiisa jooga, guriga hooyadiis ka soo kacayo, walaalihiis ku dhex jira, dalkiisa jooga, dad oo isku af yihiin, meel weligiisaba joogay, dhaqankooda iyo waxooda dhan ay isku mid yihiin oo ku soo koray ayuu joogaa.
qofkaasi wax caqabad ah uu la kulmi karo ma lahan, taas aaminsanahay. sababtoo ah meel uu weligiisaba joogay 20 sano uu joogay ayuu joogaa, walaalihiisu ku dhex jiraa, reerkiisu ku dhex jiraa, dalkiisuu joogaa. qof asaa u sharaf badan. laakiin markii dalkaaga aad ka soo tagtid oo dad kugu dhaqan ahayn, kugu diin ahayn, mararka qaar ayay kugu midab ahayn ayaad soo dhex galaysaa. caqabad haddii la halkaasay kaaga bilaabanaysaa oo kow horta dad kugu midab ahayn aad soo dhex galaysaa. ana waxaa xasuustaa in markii koowaad caruurta xitaa naga carari jireen, marar qaar ku imaanayo oo kuleeyihiin kalarkan waxaa wasaq miyaa mise see waay, dad madow weligood ma arkin. marka Soomaali markaan joognay dadka ugu cadcada ismoodi jirnay kalarkeena. laakiin markii meesha imaanay inaad kan Soomaali ugu madow iyo anaga farqi noo dhaxaynin aan dareennay. caqabada koowaad taas waaye. kadib waxa uu sii gudi galaysaa caqabadaha dhaqankaasiiba waxa waaye dadkaas ay u dhaqmayaan iyo adiga saa u dhaqmaysid boqolkiiba boqol way kala duwan yihiin. waxaa laga rabaa dhaqankaagii adoo wadatid haddana dadkaan say u dhaqmayaan iyo inaad fahantid. dhaqanka marka aad iyo aad ayuu muhiim u yahay. caqabada labaad kala kulmaysid caqabada labaad aad kala kulmaysid waa dhaqanka. kadibna luqadii iyo jawiga meesha inaad la qabsatid ayaa kuu soo dheer. marka ardayga haddii intaas uu ka gudbo oo luqadii barto, dhaqankii iyo wixii dhan ay u sahlanaadaan, haddana intaas caqabad waxaa u dheeraanayso in qof dee waxaa waaye dal shisheeye joogo keligiisa inuu iswada laga rabo. waxaa waaye waxbarashadiisa, noloshiisa kale, waqtigiisa inuu maareysto. markaa Soomaaliya joogtid, reerkaa ku dhex jirtid, iskuulkii ma aaday, waxaan ma samaysay, waxaan qabso, wax akhriso waa lagu dhahaa. laakiin halkaa markaad joogtid, walaalku waa inaad ma haysatid, waalid waxaa waaye wax kuu sheegayo ku canaanaya ma haysatid, adigaa iswadid. haddii biilka lagu soo diro, waalidka biilku kuu soo dirayaa bis. kadib biilkaasi sidaa u maarayn lahayd noloshaada, saa waxbarashada uga fikiri lahayd, waxyaabahaas dhan aday ku saaran yihiin. marka waxaa ku saaran mas-uuliyad ka weyn tii hore. qofka Soomaaliga ee dalka joogo waxaa waaye keliya waxaa saaran mas-uuliyad ah in jaamacaddiisa ka soo baxo bis oo waxbarashadiisa adkaysto. laakiin markii halkan aad joogtid ama meel qurba aad joogtid, noloshaada mas-uuliyaddeeda ku saaran oo ah guriga kiradiisa inaad ka fikirtid, ayee fatuurooyinka iyo lacagaha korontada, biyaha, internetka, midaasna ay ku dheer tahay waxbarashadaadii iyo cunnadaada. intaasna adiga inaad ka fikirtid ay tahay. laakiin Soomaali markaad joogtid, guriga hooyada aad joogtaa, kira keen ma lagu leh, haye cunnada keen ma lagu leh, cunnadaa go'day ma jirto. waxaa waaye keliya cab, seexo, waxbarashadaada aad. laakiin markaa halkan aad joogtid, waxaa waaye wixii oo dhan adigaa hooyo aabbo isku ah, adigaa walaal isku ah, adigaana waxaa waaye dee qofkaagii ah oo dee noloshaada iyo waxbarashada wax walbaba inaa adiga gacan ku qabatay lagaaga baahan yahay. intaasaaba marka caqabada kugu filan. iyadoo intaas ku haysato haddana ku dheer tahay bulshada caqabadaha kala kulmaysid. waxaa waaye midabta kor marar qaar la kulmaysaa, mararka qaar waxaa waaye dhaqankooda aadan ka helaynin, waxyaabo badan kale ku dheer yihiin. marka qofka halkan joogo ayaa uga caqabad badan. faa'iidada haddaa u galana, faa'iida hadday noqoto qof kastaba siday markaasi dee siduu uu caqabadaha u wajaho unbuu faa'iido u helayaa. carabtan waxay dhahdaa man zaraca xasada. marka qofkaasi intaasi caqabadaha maray mar walbaba wuu ka faa'iida badnaanayaa qofka caqabado yar. qofkan dalkiisa oo iska joogo waxba caqabado badan ma haysato. marka qofkaasi luqadda cusub ma baran, dhaqan cusub ma baran, keliya waxbarashadiisii iyo wuxuu markaas uu baranayo uu bartay. laakiin qofkan kale waxbarashada waxaa u dheer luqad cusub uu bartay, dhaqan cusub uu bartay, dad kale oo dalkaas uu dhalanin uu soo bartay. yacni qof international uu noqday. qofka international markuu yahayna markasta waxaa waaye xitaa haddii ay isku wax bartaan, markastaba qofka internationalka oo dee meel kale wax ku soo bartay, luqad kale yaqaano unbaa la qaadanaya. marka qofkaani caqabadaha iyo waxyaabaha adag soo u huray naftiisa inuu waajaho ayaa ka qiimo sareynaya markasta qofka dalkii hooyo iska joogo. waa mahadsan tahay maxamed sayid, sida fiican aad u sheegtay. run ahaantii waa run. ardayda markay waddanka kala tagaan oo qurba ah ku yaala, waxay la kulmaan waxa loo yaqaano cultural shocks. dhaqanka ayay la yaabaan iyo cuntada iyo jawiga isbedelayo oo dhulku baraf leeyahay. xaqiiqiyan waxay noqon karayaan challenge ama wax caqabad ka hor yimaada. haddaan isweydiino dalka Turkiga iminka wuxuu albaabada u ballaqay dhammaan ardayda ka imanaysa dalka
dalalka ku yaala Afrikada, Aasiyaanka, qayb ka mid ah muxuu ahaa Yurubta imata. Haddaba muxuu Turkigu ka dan leeyahay ardayda u furay albaabka oo waxaa la sheegay inta badan GPD-ga Turkiga wuxuu ka soo galaa ardayda ka imanaysa dibadda ka imanaysa. Sababaha u fura dalka Turkigu maxay tahay, muxuu faa'iido ka helayaa? tan horta waxaa waaye haddii ajnabigu uu furo waxaa waaye uu international iska dhigo dalkaasi faa'iidooyin fara badan ayaa u soo hooynayo. haddii aan labada ugu muhiimsan aan ka soo qaato waxaa waaye kow dhaqaalaha. waxaa waaye qof dal kasta dalkuu ka ajaanib badan yahay uu ka dhaqaale badan yahay. marka mid koowaad waxaan dhihi karaa dhaqaalaha inuu dhaqaalaha isbedelo. waagii hore 14 sano hadda ka hor ah dalka Turkiga cid taqaanay ma jirin. caalamkoo dhan waxaa waaye dee dal ka xiran uu ahaa oo dee keliya Turkida ku kooban oo ajaanibta ay ku yar tahay hal oo dee Suuriyaan oo tahriib ku soo gala maayna dadku inta ugu badan ma aysan aqoonin dalka Turkiga. 14 sano 2010 wixii laga soo bilaabo unbaa dee caalamkoo dhan aqoonsaday. markaasna waa markii dowladda Turkiga ay albaabad u furtay ardada ajaanibta iyo dadka ajaanibta raba inay dalkaasi maalgashtaan. ujeeddada labaad aan is dhihi karo waxaa waaye in luqadooda ay dadka ka gadaan. waayo dal kasta luqadiisa inuu horumariyo ayuu jecel yahay. luqadaadana haddii dalal fara badan looga hadlaayo waxaa waaye adigana waxay ku tahay horumar iyo magacaagii iyo qaabkaagii iyo dowladdaadii ayaa la suuq geeyay ka dhigan tahay. marka kulama adiga luqadaada dad badan ay ku hadlayaan halkaas waxaa fursad u haysataa horumarkaaga iyo saameynta dhan walba adiga dhaqaalaha wax walbaba. ayadana waxaa waaye ujeeddada labaad ay ka leeyihiin taas waaye. labadaas ayaa kusoo koobaya. waa mahadsan tahay. run ahaantii waa run sababaha ugu furay albaabada Turkiga waxay yihiin inuu dhaqaale ka helo, talabaadna ka galo luqadiisa iyo kaljarkiisa caalamka ku baaho soo noqdo international power u noqdo. haddaba Maxamed Sayidow, maxay inta badan ardayda aysan u dhammayn waxbarashada dalka Turkiga sabab maxaa ka mid ah? runtii su'aal aad iyo aad muhiim ayaad weydiisay. waxaa waaye caqabado fara badan ayaa horta jiro dalkan Turkiga. caqabadahaasi dartooda aysan u dhammaynin ardada waxbarashada. caqabadahaasina kow waxaa ka ah yacni ardaygan shalay wuxuu ku fikirayay inuu jaamacad tayo sare leh uu helo uu haddana wuxuu rabo ka baran karo. laakiin halkaan markuu imaado wuxuu la kulmayaa wixii uu rabay waxa aysan ahayn. facultiga uu rabay ayuu weynayaa, jaamacadduu rabay ayuu weynayaa. marka qofkii uu rajo dhigayaa oo waxaa waaye de waxaa saameynayo dadka imaanayo oo de waxbarasho ahaan u imaanin oo tahriibkaas u socdo. ardaygii waxaa laga yaabaa inuu tahriibo ama stress dartii guriga u galo kadibna sharcigii wixii ka halaabaan sidii dalkii loogu celiyo ama dadkaas tahriibayo uu ku darsamo. caqabadda labaadna waxaa waaye qofkan wuxuu arkayaa maalin kasta dad tahriibaya asxaabtiisii oo socday. marka qofkaasi focuskii ayaa ka lumaya. waxaa waaye dadkaas way saameynayaan. ayadoo saas ay tahay, ayadoo saameyntaasi jirto haddana wuxuu la kulmayaa marar qaar caqabado dee iska normal ah. marar qaar waxaad rabtidaa weynaysaa ama waxyaabo aadan jeclaysanin ayaad la kulmaysaa. taasi stress yar ayay kugu abuuraysaa oo qurbaha dhanaatay qofka hadduu joogo stress socdaa. marka qofka adkaysi iyo in qofka naftiisa ka adkaado aa la isku dhaafay. qofka marka haddii uu 2 jeer stress iyo waxaasi maskaxdiisa ay galaan dhankan ay ka jiraan dee dadkii maalin walba socday oo tahriibaya asxaabtiisii dadku yaqaanay iyo maalin kasta la socdo u arko wuxuu go'aansanayaa inuu socdo ama tahriibkaas uu ka cabsado dee guri iska galo waxbarashadiina daayo uusan tahriibin. marka meeshaan hadday waxbarashada aad deysid sharciga kaa dhacayo. sharciga hadduu kaa dhacna meel aad ka isboonaysiisid ma helaysid. waayo waxnama baranaysid dalkiina waa joogtaa sabab la'aana ku joogtaa. marka sharcigiyaa marka de kugu adkaanayo dalkii in lagu soo celiyo ayay sababaysaa ama adiga aad iska tahriibtid. caqabadahaasi ayaan ugu badan ardada. waxaa waaye mostly qofka 2 qof aa jirto, qof asiga ishagaayo, asiga qof weyn ah oo de waxbarashadiisa iyo dantiisa iyo meesha markaasi uu rabo garanayo oo mar kastaba dantiisa fiirsanayo oo waxyaabaha kale dhan oo waxaa waaye iska dhagatiro uusan u jeesan. iyo qof waagii horeba dee waalidkiisii hagaayay waxbarashada aad inta sameey waxaan ha sameynin waxaan ka joog waxaan kuuma ficna lahay oo gacanta lagu hayay.
qofkaas marka haddii halkan uu imaado wuxuu imaaday caalam wada furan oo dee qof kasta iyo noloshiisa ay tahay. Adiga marka noloshaada halkii aad u jihaysid ayuunbay tegaysaa. haddii noloshaada dhanka fiican waxbarashadaada waxaa waaye caafimaadka waxaas dhan ka taxadirtid qof fiican oo hadhow wax qabanaya ku soo baxaysa. halka kale marka waxaa ku baaba'ayo qofkii weligiisaba la hagi jiray. halkaa markuu imaado waxaa waaye adduun furan u soo dhexgalay. marar qaar laga yaabo inuu balwad barto, waxbarashadii ka haro, dad xun inuu barto. marka qofkaasi noloshiisa asaga gudguridaya markii horena maba ahaanba dee qof oo dee noloshiisa asiga hagi karo oo dee hagaajin kara. marka intaasi ayay ardada inta badan aysan u dhammaynin jaamacadaha. waxaa ardada inta badan ee dhammaysa jaamacadda waa arday ayaga naftooda ka adkaaday oo juhdi badan bixiyey, adkaystay dhibka iyo daruufta halkan ka jirto. waxaa way u dhabar adeegay unbaa dee mar kasta dhammaysa. ardada kalena qofka noloshiyaa ku adkaanayso marar qaar waxaa waaye dee jaamacaddiyaa ku soo adkaanayso amaba dhanka dhaqaalaha ayaa culeys ka soo fuulayo. qofkaasi marka wuxuu go'aan ku gaarayaa inuu dalkan iskaga tago. marka caqabadahaasi ayuu ardayga uusan u dhammaynin jaamacada. waa mahadsan tahay maxamed sayid, si fiican baad noogu sheegtay nacam waxyaabaha dadka ardayda inta badan ugu dhammeyn jaamacadaha Turkiga. hadda waxaan soo gaarnay guntii iyo gebagabadii podcastigii maanta ahaa. maxaad siin lahayd waano ama talood qofka doonaya inuu ka barto dalka Turkiga? maxaad 4 ama 3 kelmadood ood ku soo gebagabin lahayd podcastigii maanta? run ahaantii waxaa waaye qofkii intaa hadda hadlayna oo dhan soo dhageystay waana iyo tusaale iyo talaba u haystaa. marka intii hadda aan ka hadalnay unbaa soo koobaya ayagoo kooban ayaan ka hadlaya. kow, ardayga waxaa waaye markii uu dalka joogo uu meel kale uu ku cusub yahay uu socdo waxaa waaye waxyaabo badanaa u sawiran. mar kasta waxaad maanka ku haysaa waxyaabaha kuu sawiran iyo waxyaabaha realitiga xaggaas ka jirto inaysan isku mid ahaaneyn. dadka qaara waxaa laga yaabaa dee wixii ay filanayeen markay waayaan nolosha dhan ay ka dhacaan. aniga sidaa ma filanayn uu dhaho dee asiga inuu laabto mise stress uu ka qaado intaasi. marka mar kasta ku xisaabtan waxaad filanaysid inaad helaysid iyo inaadan helayn labadaba. tan kale markii aad dalka Soomaaliya ka soo tegaysid waxaa lagaa rabaa in jaamacadda aad ka soo jeekin garaysid. qofka haddii jaamacaddan uu kuu soo saaray kuu dhaho jaamacadda Google-ka geli magaceeda, rankigeed English waa taqaana, rankigeedii waxaas baar, faculty-ga u baahan tahayna warqadiisa hayso. haddii lagugu dhahaa dhow faculty-gan waa lagu bedelayaa marka xagga digsiga la bedeli karaa, wax weyn maaha, jaamacadda waa lagu bedeli karaa, waxaasi ha aqbaleen. jaamacadaha ugu sareeyo faculty-ga rabtid adigoo Soomaali joogo waxa lagu xareeyo. xitaa marar qaar semester lacag horumarin la bixiyaa, lacagta horumarinta iska bixi adigoo waxaaga isku hubo soo duul. halkaa markaa imaatid waxaad la kulmaysaa caqabado dhanka luqadda iyo dhaqanka, cunnada, jawiga. intaasi waxaa waaye dee waa la qabsanaysaa. keliya waxaad xoogga saaraysaa luqadda Turkiga. dadka qaara waxaa waaye luqadda English aniga rabaa inaan ku barto uu ku leeyahay luqadda Turkiga ma baranayo. marka luqadda Turkiga waxay qasab kugu tahay inaad u baratid beri ka maalin. waxaa waaye qof adiga dee aad taqaanida imaan karo, adigaa dan u baahan kartid, isbitaal u baahan kartaa, waa xanuunsan kartaa. adiga waxaa waaye markaad dalka aad joogtid laga maarmaan waa inaad luqadda baratid. waayo haddii kale waxaa noqonaysaa qof maanta soo galay oo qof kale inuu mar kasta wato hebelow soo bax translate samee, hebelow inta aadaya soo bax. qofna ma wadan kartid. si aad dhaqanka iyo wax walba aad u fahamtid kow waxaa inaad luqadda meel iska saartid. meel kasta haddii talo aa ku siinaa, meel kasta aad tegaysid ilaahayoo ma 3 bilood ama 1 sano aad joogtid luqadda looga hadlaa iska baro. maxay kaa dhibaysaa? waa joogtaa ma luqadda baro, hadhow meel kale kaaga soo anfici doontaa, ama intaad joogtid ayaad wax ku qabsanaysaa. mar kasta luqadda aniga waa ka socdaa iyo English wax ku baranayo, luqadda wax kuma baranayo hasliin. luqadda iska adkay. haddaa luqadda iska adkaysid waxaa waaye dadka meeshaan jooga ayaa wax la qaybsan kartaa oo xaqaaga ayaa soo dhacsan kartaa. tan kale ugu dambeysa oo aan kusoo gunaanadayo waxaa waaye haddii waxbarasho aad u soo baxday, waalidkaaga waxbarasho kuu soo direen, mar kasta waxbarashada kuu horeedo, waxbarashadaada xoogga saar. way jiraan dad badan oo waxbarashada dadka ka weydaariya. dadkaasi iska dhigateen qof mas-uula la soo dirsaday oo hadhow wax laga rabo noqo.
haddii ujeed kale aa usoo baxdayna dee ujeedkaagaaba u socotaaba laakiin haddii adoo waxbarasho usoo baxay intii lagu qaldo tahriib iyo waxaan la ogeen lagu geliyo waxbarashadaadii noloshaada meeshaa ku weynin marka markasta oo aad dee dal aadan aqoonin oo qurbaa imaanaysinba caqabadiisu way iska badan yihiin wax kastoo dee markaasi kusoo wajaha ku sawir ku dhabar adeeg waxaa waaye natiijada gadal aad ka arki doontaa intaas ayaa kusoo gabagabaynayaa waa mahadsantahay maxamed barnaamijkani maanta ee podcastka intaa wuu nooga yahay saa iyo kulanti dambe